ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan Ilaahay uga baryayaa amni iyo nabadgelyo horumar iyo khayr iyo in Ilaahay uu waafajiyo in Ilaahay amnigi iyo nabadgelyadii iyo dawladnimadii Ilaahay inoo soo celiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Ilaahay saasan uga baryayaa waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo shaqaaqada iyo dhibaatada ka jidha gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo sidaad la socotaan waxa ayaamahan isi soo taray ama dhibaato weyn ay ka muuqatay dadweynaha ku nool gobolka Mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo xilli aynu filaynay in ummadda Soomaaliyeed ay u dhaqaaqdo xagga wanaaga dawladnimada horumarka khayrka ayaa waxa lama filaan noqotay dhibaatada iyo colaadda ka aloosan ama ka soo cusboonaatay gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo taas oo sababtay barakac sababtay dhimasho iyo dhaawac intaba waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dadka khaasatan dadka gobolka reer Mudug magaalada Gaalkacyo maslaxadda iyo danteenu waxay ku jidhaa nabadgelyada iyo amniga waxay ku jidhaa horumarka iyo khayrka maanta waynu ognahay waynu ku filan tahay 25 sano oo dhiigeena aynu isxalaalsanay oo aynu dadkeenu isku baaba'ayay waynu ku filan tahay waxaan filayaa waxaan dhibaato iyo barakac iyo dhimasho iyo dhibaato ahayn lagama dhaxlin inaynu maanta markii laynaga filayay Soomaaliya inay dhinaca nabadda iyo horumarka iyo dawladnimada inay u jeesato inaynu dib ugu noqono haddana dhibaatadii iyo barakacii iyo dilkii macna darrada ahaa waa wax aad iyo aad looga xumaado waxaan leeyahay ummadda ama dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug waxgaradkiisa salaadiinta cuqaasha culimaadudiinka dhammaantiin xil baa idin saaran dhammaanteena mas'uuliyaddaas waa inay wada saaran tahay hawsha inaad demisaan inaad xoogga saadhaan in dadka walaalka ah inaanay isku dhicin inaanay kala qaxin inaan dhigoodu isku daadan inaad xoogga saadhaan waxaan kaloo u soo jeedinayaa mas'uuliyiinta inay arrinka iyaguna ay ka xoogga saaraan sidii nabadgelyo iyo amni loo heli lahaa oo colaadda oloosan loogu bedeli lahaa wada hadal iyo is-afgarasho iyo sidii dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo masiibada muddada dheer halaajisay siday uga bixi lahayd run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay intii dhimatayna Ilaahay naxariistii janno ha siiyo inta ku dhaawacantayna Ilaahay hoob uga dhayo barakaca iyo dhibaatadu intay ku dhacdayna Ilaahay xasilooni iyo amni Ilaahay siiyo dhulkooda ugu soo celiyo intaasaan oran lahaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa amni iyo nabadgelyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa dawlad caadil ah oo ummadan khayrka iyo wanaaga u horseeda Ilaahay waxaan ka baryayaa mas'uuliyiinta dawladda maamulada iyo dawladda dhexaba in Ilaahay uu waafajiyo khayrka iyo horumarka iyo wanaaga in Ilaahay uu ka dhigo kuwa dadkooda maslaxad iyo khayr ugu shaqeeya dadka shacabka Soomaaliyeedna waxaan Ilaahay uga baryayaa kuwa khayrka iyo wanaaga isku garabsada in Ilaahay ka dhigo وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان khayrka isku kaalmaysta khayrka inuu isku kaalmaysano dhinaca wanaaga iyo horumarka iyo amniga iyo waxa Ilaahay raalida ka yahayna aynu u jeesano hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah